عن أنس بن مالك وحلقه رضي الله عنه قال جاء أعرابي من بادية من رمية فبال في ضائفة المسجد. أعرابي وحال إذا ذاتك سكان البادية ذاتك بادية تقال إلى أعراب مكة وحين أبديه وذاتك الجفاء وحضارنا كفقوه يعني حق دينتنا وكوير تهي لنا عن كلمة وذاتهم يعني دور كاسي سجران الأعراب جفاء بيبنيهم مكة نحن بادية وصعداء يمين النبي عليه الصلاة والسلام مسجد كفرية وأصحابه في حلقاء وشاكينيه أيوه يمين كتبوا وطيئوا وبركاسوا برنانكا إذا حتى ترتقيسي حلقاء دي بوصوكا لا أشي وعبار اسكدر يستي مركو يعني عبار اسكفدي لأن أضي أنا هو هاي كاذبا قبطي مركو كاذب مركي قبطي فبعل مركاسو كأليه في ضائفة المسجد حقهم بو يردقاقيهم سيدكو دير يعني حريش وصانو وريكسن بواسوما دينا عاصم بو يردقاقيهم ماشي بداية دينا عيسى يسمو الله فريد تكاليس بحقه ولا سيجيس هالكي وستكشف فقد رمي مسكاها يكوه إناني مساجد يوحى معوك يقان مسجد بوليين وعرق بالغي يابا مركا وضياتا رمي أنا إسكالمو انفقادان كالي هذا رمي إسكالم فريسان ويدوسكم ويفوسوا دوية خلاص مركا رقم ما أنا ماشان فرديو ضنبا كمالله صوما حقهم بولا سيجيستيو ماذا يجيبوا مكانكم بالله فزجره الناس ضدك با عنانتي حق لوغا سوبود marka la ka soo masaajidka kaadi la fariistay فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وكنه dadkii uu ka celiyay wuxuu kaadi فلما قضى markuu dhameystay bawlahu kaadidiisi amara nabigu amray صلى الله عليه وسلم بذنوب وذان أي نبي امray وذان او من ماء بيئه وذان وين وبيئه صدر فأهرق عليه ما شبه لو شوبي أصابه ذهب آية حكم ككوباد اللي قاضميه حديث وحوي ملك هدون نجاسوب سيد الله ظهير يوم لكن مساعد يعني عيد بوسكاها شميتي واحد ما هي عيد بوسكاها ماشي مركا مركو كوكادي كان يقول لما يسوي وككعي ولنا ولان سوق هذا او كشوا ماشي مركا ملك هدون نجاسوب ظهارتي سماها ان عيد على كرو ان اللي انت كانوا غارتو ده هل قادل اني ما biya lagu shubaya biyahaasna waa inay biyo badan intay kaali gaarto ciid ay gaarto tan biyo camilayo oo ka badan waa inay tahay markii biyaha lagu shubo oo intoo dhan biyo ay buuxiyaan ay gaaraan خلاص daahir noqonaysa lash daahir noqonaysa tan kale nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa laga qaadanaya nabiga xilmigiisa iyo lutfigiisa baa laga qaadanaya oo waliba khaasatan dadka yani cilmiga lahayn ay juhaasha nabiga u dhimrin jiray markii asxaabtii ay ku soo yaaceen ninkii oo xagga looga soo booday oo la canaantay nabigu waa ka celi hayli mafsada yani laba mafsada ee midda ka sii weyn ayuu nabigu hor istaagay oo ilaalinay masaajidka lagu kaadiyo waa mafsado hadda hal mafsado ninkaan la yimid laakiin haddii ninkaas ama wax lagu dhufto ama yani oo markaas u boodo laba mafsada meesha ka imaatay midda koobaad qofka markay kaadidu ku kala goodo horta waa mafsado oo xanuun baa imaanaya meesha tan labaadna waxa weeye kaadi nijaasada hadda hal meel ay ku eg tahay ninka hadduu kaco waxaa laga yaabaa masaajidka oo dhan inuu nijaasayo soo kaadi haddii lagu garaaco ama wax lagu dhufto wuu la boodi lahaa markaas masaajidka nijaasay lahaa marka taasuu nabigu hor istaagay calayhi salaatu wasalaam kaadiisi markuu dhamaystay ayuu marka biyaha ku shubay walaanta biyaha ku shubay ninkii marka uu iska kacay baa leeyahay yani riwaayadan hadda way gaabanta uu iska kacay ninkii marka wuxuu arkayay un dadkii oo ku soo wada booday iyo nabiga ka reebayo arkay Soomaa uu kacay uu iska baxay ritigiisii buu watay markuu dhaqaaqay ritigiisii iska hoggaansaday buu wuxuu yiri Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan ilaahu aniya Muhammad noo naxariiso qof kale na uu naxariisan nabiga alayhi salatu wasalaam waa qodlay wuxuu yiri hajjata baban wasi'an bab wasi'o weyn wa rahmad ilaahi wa wasi'at kull shay la yiri ayaad cidhiirisay budani adiga nuguma eko حجبت بابا واسعا باب وين بتوعدي لسه ورحمه الله marka dimrigaas la doonayo qofku markuu diinta waxa raba xataa diinta si dimriya iyo si fudud inaad dadka ugu sheegto lama doonayo inaad dadka horarto ama wax walba inaad culays iyo aday ka dhigto lama rabo yasiru wala tu'asiru wa bashiru wala tunfiru nabi alayhi salatu wasallam inna ad-din yusrun wa la yushad ad-din ahad illa ghalat marka diinkeenu saas rabaa